bismillaahi raxmaani raxiim qodobada ugu waaweyn warka idiin hayo warbaahinta galcad media news waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay ku hoolan tahay sidii loo heli lahaa meel ka baxsan maxkamadda caalamiga si loo gaaro xal buuxa. madaxda dowladda Soomaaliya oo go'aamiyay in la xiro madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. safaaradda Soomaaliya ee Nairobi lagu furay laba dacwad oo xasaasi ah. maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo sheegay inay weerar ay ku dishay 14 askari oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya AMISOM. galcad media news wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay ku hoolan tahay sidii loo heli lahaa meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka si loo gaaro xal buuxa. Kenya ayaa sheegtay inay wada xaajood kala duwan oo lagu soo afjarayo dhibaatooyin ka dhashay muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadoo aan la aadin maxkamadda adduunka ee cadaaladda. xal waara waa in laga gaaraa muranka badda. waxaan doorbidnay xalka wada hadalka ayay tiri Monica Juma, wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya. baaxadda uu fadhiyo badda ay Kenya doonayso waxa uu gaarayaa 100 kiiloomitir oo isku wareega. warar ay heshay warbaahinta galcad media news ayaa xaqiijinaya in madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya isku raaceen in la xiri karo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, labadiis ku xigeen iyo saraakiil ka tirsan maamulkaasi. xubno ka tirsan hay'adaha ammaanka Soomaaliya oo la hadalnay ayaa sheegay in amar lagu siiyay qofkii xilka haya Jubbaland oo soo maray magaalada Muqdisho inay xiri karaan, sida wasiirka amniga Jubbaland oo ku xiran magaalada Muqdisho. amarkan waa mid cusub balse warbaahinta oo maalmahan ku waday baaritaan waxay ogaatay in markii la amray diyaaradaha Kismaayo ka baxa iyo kuwa ka socda ay soo maraan magaalada Muqdisho. ciidamadan lagu amray in la xiro madaxweynaha Jubbaland iyo labadiis ku xigeen iyo qof walba oo ka tirsan golaha wasiirada Jubbaland iyo xildhibaanada iyo saraakiil ciidan. lama ogeey sidii arrintan ku dhaqangeli karto, balse waxaa jira warar sheegaya in Axmed Madoobe uu Kismaayo ugu bixi karo kaliya dhinaca badda inta uu kala heshiinayo dowladda Soomaaliya oo la sheegay inay raadinayso fursad ay ku qabato. Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa sidoo kale awooday inuu raaco diyaaradaha helicopterka ay leeyihiin ciidamada Kenya oo u baahan inay xiriir la sameeyaan hay'adaha duulista ee ku tagi kara Nairobi. dowladda federaalka Soomaaliya ma awoodo inay Axmed Madoobe ka soo qabato Kismaayo maadaama halkaas ay joogaan ciidamo awood leh oo maamulkaas ka amar qaata, balse ay doonayso inay ku qabato Muqdisho markii uu soo maro isagoo si transit ah sida wasiirkii amniga ee Jubbaland Mr. Janan oo hadda ku xiran magaalada Muqdisho. safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya laga furay laba dacwadeed oo xasaasi ah. shirkad qandaraasle Kenyana ayaa ku eedeysay safaaradda Soomaaliya ee Nairobi inay xabistay kadibna ay jirdishay shaqaale loo diray inuu gudbiyo dacwadeedka kiiska ka dhan ah safaaradda ee laga furay maxkamadda Milindi ee dalka Kenya magaalada Nairobi. Amos Matumbo ayaa sheegay in loo diiday inuu safaaradda ka baxo waxyar kadib markii uu geeyay galka dacwadda. Amos ayaa eedeyntu ku sheegay kiis ka dhan ah safaaradda uu geeyay maxkamadda, sidoo kalena loo diray wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma. Amos ayaa waxaa soo dirtay shirkadda qaranada ee HMC si uu safaaradda u geeyo gal dacwadeedkii kiiskiisa u dhaxeeya safaaradda iyo shirkadda dhismaha qaabilsan, kaasoo ku saabsan dayactir ay shirkaddan sheegtay inay ku sameysay dhismo ay safaaradda ku lahayd magaalada Nairobi. wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa la sheegay inay kulan arrintan ku saabsan la yeelatay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Monica Juma ay jimcihii sheegtay in laga yaabo in qofkii loo diray safaaradda uu hab khaldan u adeegsaday inuu gal dacwadeedka gaarsiiyo safaaradda. safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi fadhiyo Maxamed Axmed Nuur Tarsan ayaa beeniyay inay qof ku dhex xirteen safaaradda, wuxuuna wargeyska The East African u sheegay in ay tahay tan been cad. murankan la xiriira dayactirka ayaa u dhaxeeya safaaradda Soomaaliya iyo shirkadda Kingsley Construction Ltd ee safaaradda ku eedeysay inay leedahay lacag dhan. kooxda Al-Shabaab oo sheegtay inay weerar ay ku dishay 14 askari oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee u jooga Soomaaliya AMISOM. waxaa faahfaahin dheeraad ah ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerar jidgal ah oo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay shalay ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM oo safar u marayay deegaan hoostaga degmada Balcad.
Al-Shabaab oo war ka soo saaray weerarkaasi waxay sheegeen in ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi ay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaga dileen ilaa 14 askari oo 12 ka mid ah oo goobta lagu dagaalay meedadkooda kaga carareen. 4 askari oo loo mid ay tahay 2 dhaawacana ayaa lagu sheegay warka Al-Shabaab in ciidamada AMISOM ay geeyeen saldhig ay ku leeyihiin deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay war ka soo saareen waxay ku sheegeen weerarkaasi in la 8 askari oo dhaawac ah ay AMISOM diyaarad ugu qaaday duleedka degmada Balcad kuwaas oo la geeyay magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa sheegtay in hub badan ay dagaal kaga furteen ciidamada AMISOM qaybtooda Burundi oo intooda badan ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe. Markii laga soo tago sheegashada Al-Shabaab ma jiro wax war oo ka soo baxay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo ku aadan weerarkaasi inta uu dhan yahay khasaaraha ka dhashay. Warkii oo aad kala socoteen warbaahinta Galcad Media News akhyaartana daawanaysay waa nageynta intaan warkan war la mid ah ku kulmi doono waxa idinkaga tagnaa sida nabadgelyo. waan idinkaga mahadcelinaynaa la socodka wararka iyo barnaamijyada xiisaha badan ee warbaahinta Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.